الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي كلا oo wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay dhamaantiin baa khayarta hawada naga daawanaysa ay ku soo dhawaada barnaamijkii qisooyinka aadamaha iyo mar kale waxaana barnaamijka maanta marti igu ah oo qiso qiimo badan inoo qaada dhigi doona Cabdifataax Nuur Bile oo ah barta cilmiga saxaafadda college-ka MSI X Al-Imra oo lagu barto cilmiga saxaafadda soo dhawaad Cabdifataax qisadii qiimaha badnayd waxay dhaxmartay wiil qurba joog ah oo qurbaha ka yimid iyo gabdhihii ku sugnaa wadanka sida aan la soconay uu soo wanaagsanaaday ammaanka wadanka gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho waxaa soo badanaysay qurba joogta ku soo laabanaysa wadanka qurba joogtaas oo rag iyo dumarba waxaa laga qoray sheekooyin taariikhda gala waxaa bedelmay dhaqankoodii oo ay ka tageen qof kastana wuxuu qaatay dhaqankii iyo dhalashadii wadankii uu ka yimid waxaana la tuuray dhaqankii Soomaaliyeed ee aynu ka abiye ka awow lahayn wadaadna waxa iskhilaafay dhaqankii ay wadanka ugu yimideen iyo kii ay wateen sidoo kale waxa laga qoray sheekooyin taariikhda galay qiso qosol badan oo sheekadani qusaysa markii dhan laga dayo waxa ay noo haya wariye Cabdifataax Nuur Bile Cabdifataax ku soo dhawow barnaamijka qisooyinka adduunka sheekada aad noo hayso كل هرداء إلى أنا بوان هلاي قصر كبدنينا بالتعوضياشة مغشي الفكرة هو هذا ما سنتهي هذه كمان شكلها إن هرتا وحكود على سيدي على شيء ويلكي من قربها يو جبر دولكي هو يجوكتو هي رحمة لي سيدا أن لسه عنه ضد كمركي قربها كي مالان إني دقن كي هو لقب سدان بقوات كاتا markii qisada waxay ku saabsan tahay dhaqankii noocaas ah oo isxili waayay ninkan wuxuu ka yimid UK London ka yimid wuxuu yimid Muqdisho ayuu imaaday wuxuu u imaaday Muqdisho in uu gabar guursado markii uu soo imaaday ayaa wiilal asxaabtiisa ah wuxuu u dirsaday gabar inay u doonaan ninka magaaladii jooga kala wiil galo oo magaalada gabar fiican soo qabtaan welibana gabadhi shuruudo ayuu ku xiray shuruudaha ugu xiran waxay ahaayeen gabadha waa in ay noqoto gabadh aan buurnayn adiga yani dooqiisa gabar hilib yar welibana wuxuu cillad oga dhigay wuxuu yidhi dhulkaan ka imaanay gabdhaha gurguran lama rabo raggii gabadh ugu dooneen gabadhii bay dhaheen gabadh dooqaadan kusoo helnay oo qurux badan lacagtii ugu dooni lahakeen gabadhin aan ku raadin shuruudo ayuu hor dhigay gabadha noocay tahay gabadhu waa inay habto yiri gabadh aan buurnayn gabadh hilib yar ayaa u baahan inuu dhahay wuxuuna cillad oga dhigay dhulka aan joogno reer galbeedka lagama jeclo gabadh buuran raggii saaxiibadiis ahaa ayaa magaalada u galeen gabar qurux badan baa kusoo helay ku dhaheen كان العدد موجود ولا واسد هي دو خوضاي سيد هي دو خوضاي عيد كمان مقدشو شي ندو هلا gabadhi xaafadda ugu shidnay markaas bay u keeneen markii gabadhi la soo diyaariyay ku dhaheen lacagtii ugu doon laakiin gabadha aan cidooda kaaga doonay lacag $4,000 u dhiibay gabadha la doonay oo yani touristi mise maca khamra siduu sheegay gabadha waa Suuriyada Suuriyadii Suuriyada ku bixiyay mudadaali kadib markii daan aroos galkii iyo wixii loo diyaar garoobay wuxuu yiri intaan arooska dhicin gabadha waa inay sagnaa waa sharci gabadhi waa loo keenay gabadhi marka loo keenay ayuu ka booday ka biyadiiday maxaa sabab wuxuu yiri show wuxuu arkay gabadhii shuruudihii inaynan soo buuxinin oo ka rabaysa oo maxaa dhacay wuxuu yiri aniga waxa ii keentay buu yiri gabar guriga lagu baaran jiray waa hilib la dhaqaaqila aniga noocay loo dirsan marka noocaan idinta sidmaa wili sidii ugu biin jiray gabadhi cidoodana way tahay maadaama aroos isku diyaarinayeen way xanaaqeen asiga ee waalidkiisba marka waxay dhamaan okay Cabdifataax markii wiilkii gabadhii uu doonay ee kharashka uu bixiyay ee asxaabtiisii uu dirtay ee uu ku qancay uu yiri aan arkay uu arkay uu yiri hadana mar rabo dooqeygii ma aha maxay gabadhii reerkoodu sameeyeen hadda gabadhii ka soo jeeday ciddii way xanaaqeen maadaama isku diyaarinayeen aroos
asaga waalidkiisna waxay ku qanciyeen arooskan inuu baajinin maadaama maarata dhaqanka soomaalida aroos intii la diyaariyo inaan laga laaban karin. xaal baa laga qaada hadduu gabadha diiday. haa hay inkastoo aan malayn xaalba qabanayn. kolley arrintaas way waalidkiisna way ka xumaadeen laakiin asaga wuu kasoo istaagay. hay guurkiina sidii buu ku fashilmay. waan gartay. marka waxay dhaheen marka waa inaan uga raadina baadiyaha ayaa laga helayaa. kii koobaad markuu fashilmay waxaa la waa in duurka loogu doonaa. haa hay baadiyaha loogu doonay gabar. waxaa loo soo helay gabar adeerkiis dhalay oo nooc curabe ah, gabar qurux badan oo hadda la dhuuban. ilan baadiyaha lagaato kuwa gabdhaha baadiyaha jooga dhuudhuubane ingiriiska u egyihin. hay gabadhii baa loo soo helay baadiyihii. gabadhii waa markii lasoo helay gabadhii waa lagu meheriyey, arooskii baa dhacay, baadiyihi aroos ka dhacay. oo isagii baa baadiyaha la geeyey. baadiyihi aadi hay lagu jabiyey. arooskii halkii buu ka dhacay. marka arooska dhacay ayaa lasoo gelbiyey. marka arooskii aroosadii waxaa loo soo gelbiyey magaalada Muqdisho. oo in magaalada loo soo qaado. hay marka waxaa lasoo saaray gaariyaashan baryahan magaalada kusoo badanaya Muqdisho ee nooha loo yaqaanin kuwa raaxada ah ayaa lasoo saaray. wadadana marka wado waxay ahayd wado aada u burbursan, iska jajaban oo dawlad la-aantii iyo meelna dee duur ah wadada waad garanaysaa. wadadii oo halaysan ogeed iyo gaarigii jirjirtiisii gabadhii sida ay eelkeeda sheegeen gabadha in muddo ah safar dheer may gelin. hadday doonto weligeed magaari ma raacday waa gabadh ariga la joogta. hay gabadhi marka jirjirtii way mantagday. waa lasoo gelbiyey, waxaa loo soo gelbiyey magaalada Muqdisho. hay waxaa lasoo saaray marka gaariyada noocan raaxada ee nooha loo yaqaano. hay gabadhaan sho weligeedba gaari may raacin, safar dheerna may gelin. gabadh oo duur iska joogtay jidkii oo iska xun oo maadaama marka wadada waxay ahayd wado burbursan bay ahayd. wadada way haleysnayd. way mantaqday marka gabadhi. hay balaayaa dhacday. ta ugu daran ba ha mantaqdayaadana waxay ku mantaqday suudkii uu ninkii iga qabay ayay ku mantaqday. ninkii dhanaa xadhagoonayay ee arooska ahaa. hadda be waa gartay raayada degatay waay. laakiin asaga uu la yaabay, asaga wuu xanaaqay. wuxuu yidhi sidee u mantaqi kartaa, maxaa ku dhacay? hay marka muqaado waayo wuxuu gaari kuma taqayo munaak. haa weligiis mu arkin bo. hay marka waxaa lagu dhahay gabadha xoogaa xanuun baa kusoo booday. hay iska dulqaadin lahaa magaalada laga tegay. reerkii gabadha yar wax saabasaabay. haa hay waa la yara dejiyey. hana gabadha way xoogaa xanuun baa kusoo booday. waa wax hore u lahaan jirin. horaan may lahayn. hay dhib kale ma jiro. magaaladii waa la yimaaday. markii guriga la tegay ayaa wuxuu damcay marka asaga dhaqankiisa iyo ismalahan gabadha dhaqankeeda. wuxuu u malaynayaa marka siduu xaq ku ahaa in intanu ku ahaan karo. bal gabadhii oo Muqdisho diidayaa u dhaatay oo yar dhexdhexaad ah. xoogaa dhexdhexaad oo ayada yara xishoonaysa wax baabaala hadii laakiin tan waa la sii kala fogyahay. haa haye maxaa damcay marka markii oo guriga la geeyey ee hadda Muqdisho ay tageen ee gabadhii la yidhi mataqi waa wax kusoo booday iska samirnay oo xaal qaala la yidhi kadib la aaday xaafadii iyo Muqdisho. maxaa dhacay? waxaa dhacday wuxuu damcay inuu gabadhii afka ka shumiyo. markuu afka usii saarayo ayay inta iska qabatay iyo waxay ku tiri marka hadallo uunan u dulqaadan karin. adwaanada ani kitaab maanahay ee ku tiri ay waa qalad bas asiga u xanaaqeew si ku dhacday buu yidhi maxaa aabihiis buu lahadlay maxaa dhacay gabadhaan see ii diidi kartaa soo ani ma qabo. hay isna waa gartii isagu wuxuu u malaynayaa dee wixii caadiga caadi iska tahay. waxaa la yidhi kalamaan moogta. ha laba kala bareede kala war laaban. asaga dhulku ka imaaday waxaas in afka la iska shumiyo waa shay caadi, waa qayb kamid ah, qayb nolosha kamid ah waayo. meeshana inay dhacdo ma suurtagelayso. sax haddii xataa ay dhacdo in gabar afka laga shumiyo waa dadka hortooda ma suurtagelayso. asaga markuu u xanaaqay sida ku dhacdaa lahayd waxaa markii dambe ugu dambeyn ninkii gabadhi way ka carartay. laba khasaartuu galay. midii hore oo saaxiibadiis way ku khayaameen, midii kalena way ka carartay. wuxuu sameeyo garan waaye. okay tii hore markay saaxiibadiisu keeneen ama wiilashii ay qaraabada ahayd ay u keeneen waa kii yidhi anigu gabadhan maba rabo guriga lagu calfinayay gabadh dhuuban oo kan oo kii kale oo ingiriiska noocii looga dhaqmi jiray u dhisan baan rabaa
gabadhii tolkeedii iyo qaraabadeedii waa kii ku gacan sayday wixii waa kii burburiyey inadeertiibaa duurka loogu doonay waa loo keenay waa kii haddana dhaqankii laysku fahmi waayey maxaa dhacay ugu dambeyntii ugu dambeyntii waalidkii waxay ku qanciyeen gabadha waa xaaskaaga wax walbana adaa ka keensan karto marka waxaa loo baahan yahay inaad samirto u samir oo ka keensanaysa sabab u samir oo waxaa loo baahan yahay inaad barnaamijka ka keensataa u dhahay laakiin dhaqsa hadidin hadda sidii buu ku samray ninkii marka sidaas waxay ka mid tahay qisooyin ku dhaca badanaa dadka qurba joogta ah dhacdooyin fara badan baa ku dhaco midaasna waa mid kamid a qisooyinkaas aad iyo aad baad cafitax u mahadsantahay adiga iyo sheekadaada qiimaha iyo qaayaha badan ee aada noo soo diyaarisay una soo gudbinaysay daawadayaasha ku xidhan barnaamijkan qisooyinka aadamaha daawadayaal barnaamijkeeni qisooyinka aadamaha oo maanta uu inoo soo diyaariyey qiso qiimo badanna inoo soo gudbinaya weriya cabdifatax nuur bile idinlena socodsiinaya anigoo ah Afakaadhe Maxamed Axmed intaasi ayuu inoogu egyahay tan iyo kulanti dambe oo teenana waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaan ciwaanadeena shaashada ku qoran